xubnaha iyo madaxda xisbiga kulmiye ee dalkan UK ayaa kulan aad u ballaaran waxa ay ku yeesheen galbeedka magaalada London. Kulanka ayaa waxa ka soo qayb galay qaybo ka mid ah taageerayaasha xisbiga kulmiye iyo qaybo ka mid ah dadweynaha reer Soomaaliland ee ku dhaqan magaalada London iyo nawaaxigeeda. Sidoo kale kulanka waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga kulmiye Mudane Axmed Cabdilaahi Axmed Axda. kulankii iyo sida uu dhacayna waa kan. walan ilaahay baa mahad leh kulankeena baa khayr leh kulmiya guul leh insha Allah bismillaahi kariim anigoo ku hadlaya magaca guddigii soo qaban qaabisay halkan ana gudoomiyahoodii magacayguna yahay Maxamed Al-Dawaahiri waxaan si mug iyo miisaan leh idinku soo dhaweynayaa si maqaam sare ah qadarin iyo qushuuc iyo qalbi wanaag kaliya laab iyo kala xiiba iyo kalgacal badan iyo salaam kulmiyeysan sida quruxda badan leh ee ay dilooga soo ajiibteen codsigayagii ama baaqayagii waxaanay ogeyn labada madaxweyneynu soo saaray kii saddexaadna inaynu u xoqanayno oo caawa ay kow tahay dardargelintiisa iyo wacyigelintii oon mar saddexaad qaadan doono insha allahu tacaala madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa weeyaan dadku in badan ayayna hadal hayeen kulmiya ma seexdo mana suuxo laakiin way yaqaanaa waqtigooda iyo nambarkay kubadda ka ciyaaraan markay ciyaartu bilaabanto caawanay bilaabantay ciyaartii tartan adag baa jira waayo inaguna mar saddexaad baynu rabnaa xisbiyada kale qarankuna inay mar un helaan bay rabaan marka xisaabtu aad bay doorashadaas wanaageega waxa iska leh saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland dhamaantood iyo guddidii commissionka ee hawsha gacanta inoogu haysay oo iyagana mahadnaq ugu weyn leh waanu istaanay kuwa kale ee hareeraha ka joogana waxaan leenahay hala taageero horumarka iyo waxqabadka dawladnimada madaxweyne waxaanu ku soo direynaa adiga iyo madaxweyne ku-xigeenkaagaba salaan sharaf leh marka xiga waxaan salaan diiran u direynaa madaxweynaheena iyo madaxweyne ku-xigeenka dalkeena jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leenahay noolaada waanaanu idin garab taaganahay mar labaadna madaxweynuhu ku soo saarayna hadii la helaado waxaad moodaa inuu heerkii uu gaaray laakiin waxa inoo harsan inaynu mar labaad iyo mar saddexaadba halkii loogu talagalay aynu geyno aynu madaxweynaha mar labaad doorano ee soo saaray madaxweynihii hore ee Siiraanyo haddana soo saaray Musabixi imikana diyaar baan u nahay mar labaad inaan soo saarno mishiinku dib u dhaqaaqay ay caawa bilow tahay aad baan idin wada salaamayaa waxaan hambalyo u dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland marka kala biin kala dhigo xisbigu inuu shaqeeyo mar kasta mar doorasho jirtay meeraan jirba inuu shaqeeyo doqon baa halka lagu ficiltamay in lagu kala tagayo mooday ee maanta xamar iga raacaysa ee qadaadweyn iga raacaysa dooni maayo anigu mid baan leeyahay reer kulmiye oo laba jeer baan guuleysanay imikana waa mar saddexaadkii inaga leenooga baahan yahay inaynu ficilkii keenno iyo isku xidhkii xisbi qaran baynu nahay kursiga baynu hananay marka fadhiisiga saasay nagu wacan imikaynu laakiin soo celinaynaa waa mar labaad iyo Muuse Biixi doorashadii ay soo dhowdahay sanad baynoo haray had iyo jeer waxa fiican markii dib wax kugu soo dhawaadaan in tababarasho hore yeelato imika abaabulkii la galo oo dadka loo baahan yahay inay campaign-ka bilaabaan inta badan UK dhul way ahayd ama meesha ugu muhiimsan ee campaign-ku bilaabi jiray bay ahayd waxa kaloo u mahadnaqaynaa ciidamadeena inuu maaragtay difaac inoogu jiro minbar ilaa galbeed ee dhulkii laga codeynayay amniga sugay aad iyo aad baan iyagana ugu salaamaynaa uguna mahadnaqaynaa xusbiyada kala duwan ee xusbiyada qaranka ee Soomaaliland ee sida wanaagsan natiijadii ugu qancayna aad baan iyagana ugu hambalyeynaa ugu salaamaynaa dhammaan dalku qurux badnaa aad iyo aadna ugu wanaagsanaa
sidaa aad wada sheegteen ee aad ka dhawaajiseen doorasho qurux badan baa inoo dhacday waa markii ugu horreysay bay ahayd ee aynu laba gole aynu mar wada dooranno insha allahu tacaala marka kalena 3 baynu israacin doonaaye oo doorashooyinku dee way hawl badan yihiin dal yaroo soo korayaynu nahay dhaqaalo badan bay u baahan yihiin marka inaynu isku darnaa oo aynu israacinaa innaga waxay inoo tahay guul aad u weyn dadku qaarna waxa weeye xil ku kulmiye dadka qaarna waxa weeye xusbiyahan ku kulmiye inagu waxaynu nahay xusbiyahan ku kulmiye xil ku kulmiye manihi hadii la isleeyahay kulmiye waa maqan yahay ama kulmiye saaxadu oo ade waxa la iska dhaadhiciyo waxaan u maleynayaa dad riyo maalinimo riyoonaya inay dadkaas yihiin kulmiyenimadiisu runtii xubnaha kulmiyenimadoodu isma bedesho ma gabowdo ma habsaanto saacadda siiriga loogu dhuftaabay reer kulmiye soo baxayaan marka horta awlan waxaan aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo doorashadii golaha baarlamaanka runtii baarlamaankii fadhiyay 16 sanadood runtii duruufaha badani ku xeernaayeen wixii oo duruuf ahayd oo ku xeernayd ka furfuray hadday tahay saami qaybsi hadday tahay wax kale hadday tahay arrin kale dabeetana doorashadii 16 sanadood la qaban kari waayay isaga ilaahay nasiibku u siiyay inuu qabto madaxweynaha aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waliba waxa doorashada inoo dheeray 2 doorasho inuu isku sidkay oo aan deere ku yirdiin Abdulrahman Shaqale, Home Cable TV, London.